السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيق وعبد الناصر أبشر علي كسو دوادا xogta wararka Banaadir TV ee magaalada Muqdisho qodobada maanta ku daawad doontaan waxa kamid ah daraasad cusub oo la sameeyay wadankaasi Mareykanka waxay muujinaysaa in muwaadiniinta wadankaasi ay kansalayaan dhalashada wadankaasi sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxa xalay si weyn loogu soo dhaweeyay wadankaasi Turkiga isagoo ka hadlay arrimo la xiriira shirka Dhuusmareeb ee la filayo in dhawaan uu ka dhaco magaaladaasi qodobada kale ee barnaamijka intuu socda aad ku daawad doontaan waxa kamid ah doon waday shaxnad shidaal oo ku gadoontay badweynta Hindiya iyadoo markaas ay ka dhashteen qasaaro aad u fara badan sidoo kale barnaamijka intuu hawada ku jiro waxyaabaha aad ku daawad doontaan waxa kamid ah muwaadiniin u dhashay wadankaasi Faransiiska waxa lagu laayay dalka Niger ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika qodobadaas iyo qodobo kale aad ku maqli doontaan barnaamijka intuu socda waxaana ka maqnaa doonaa barnaamijka ama xubinta saadaasha hawada iyo sportska marka la ku soo dhawaada isku soo noqod wanaagsan daawadayaal meel baad joogtaan taariikhdu waa 10 Agoosto 2020 hadii uu gudagulna barnaamijka xogta wararka ee Banaadir TV daraasad cusub oo la sameeyay wadanka Mareykanka waxay muujinaysaa in muwaadiniinta wadankaasi ay kansalayaan baasaboorka wadanka Mareykanka sida lagu soo daabacay daraasad cusub oo la sameeyay 2020 waxay muujinaysaa in muwaadiniinta wadankaasi Mareykanka ay kansalayaan dhalashadooda wadankaasi in ka badan 5800 oo muwaadiniin Mareykan ah ayaa kansalay 6 bil ee ugu dambeysay sanadka 2020 dhalashada wadankaasi markii la barbar dhigo 2019 waxa kansalay 2072 qof taasi oo muujinaysa in ay korortay markaasi muwaadiniinta kansalaya dhalashadooda wadankaasi Mareykanka sababaha ugu badan ee muwaadiniinta wadankooda ay ugu tagayaan ama ay u kansalayaan baasaboorka Mareykanka waxa lagu sheegay inay tahay siyaasadda qalafsan ee Donald Trump cudurka COVID-19 oo markaas ku sii baahay wadankaasi iyo cashuuraha wadankaasi oo kor loo sii qaadaya dad badan waxa ay sugayaan doorashada soo socota ee November sida ay wax u dhacaan hadii markaasi waxa la leeyahay Donald Trump oo dib ugu soo laabto doorashada wadankaasi waxay dad badan go'aansan doonaan inay kansalaan muwaadinimada wadankaasi Mareykanka qofkii raba inuu ka baxo muwaadinimada dalka Mareykanka waxa waajib ku ah in uu bixiyo lacag gaaraysa $2350 waa hagaag daawadayaal waxaanu ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka doon waday shaxnad shidaal ayaa ku gadoontay badweynta Hindiya mutadawiciin ku sugan dalka Mauritius ayaa la tacaalaya sidii ay abuuri lahaayeen silsilo sida ay ugu fogaadaan saliidda soo daadinaysa markab ka fog jasiirada markabkan oo lagu magacaabo MV Wakashio ayaa la rumaysan yahay inuu waday 4,000 tan oo shidaal ah isagoo ku gudooma meel ku taal badweynta India 15 Luulyo oo sanadkan dalka Mauritius wuxuu hooy u yahay coral reefs iyo dalxiiska ayaa qayb muhiim ka ah dhaqaalaheeda sawirro lagu daawacay warbaahinta maxalliga ah ayaa muujinaya mutadawiciin ka soo aruurinaya coos beeraha kana soo buuxinaya joonyaadaha si ay kaga hortagaan shidaalka ku daata badweynta India وهاجك داود يلا هدينو اجننا مدحونها Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxa xalay si weyn loogu soo dhaweeyay wadanka Turkiga isagoo markaasi ka hadlay arrimo badan waxaana kamid ah waxyaabaha uu soo hadal qaaday shirka Dhuusmareeb ee la filayo in markaasi dhawaan uu ka dhaco caasimadda Galmudug ee Dhuusmareeb madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa sheegay in shirka Dhuusmareeb uu dhici doono xilligii lagu ballamay isagoo meesha ka saaray inuu dib u dhac ku yimaado Dhuusmareeb 3 madaxweyne Qorqor oo ku sugan dalka Turkiga ayaa khudbad uu xalay u jeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Istanbul waxa uu u sheegay inay muhiim tahay in laga fogaado wax kasta oo wax u dhimi karo shirka Dhuusmareeb 3 lana tixgeliyo reer Galmudug sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan madaxda uu la xiriiriyay ayna rajeynayaan in la tixgeliyo oo la dhooro si la isugu yimaado gogosho soo socota ee Dhuusmareeb 3 ee lagu balansan yahay 15 bisha August
inkastoo madaxweyne qoorqoor u cadeeyay in shirka waqtigii lagu ballamay la isugu imaan doono, haddana waxaa muuqata in farsamo ahaan aanu shirka dhici doonin waqtigii lagu ballamay ee 15 August oo ay ka harsan tahay 5 maalin. waa hagaag daawadayaal haddaynu fiirina dalkaasi dhaca qaaradda Afrika galbeedkeeda ee Niger waxaa halkaasi markaas lagu laayay muwaadiniin Faransiis ah. raggan hubeysan ayaa waxa ay wateen mootooyin waxa ayna ku fureen rasaas gaari ay la socdeen muwaadiniinta Faransiiska ah sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka dhibaatadu ay ka dhacday ee Tilbury. waxa ay joogeen gobolka Koro oo caan ku ah dalxiisayaasha doonaya inay arkaan gariga duurjoogta ee noociisa ugu dambeeyay laga helo galbeedka qaaradda Afrika. madaxtooyada Faransiiska ayaa iyana dhankeeda xaqiijisay dhimashada muwaadiniinta Faransiiska ah. alaha Faransiiska ayaa u shaqeynaya koox gargaar caalami ah sida uu Reuters u sheegay wasiirka difaaca dalkaasi Niger. dowladda Mareykanka waxa ay cadaadis saaraysaa hogaamiyaha dhaxal sugaha wadankaasi Sacuudi Carabiya. dowladda Mareykanka waxay cadaadis saaraysaa xukuumadda Riyadh hogaamiyaha uu yahay Mohammed bin Salman dhaxal sugaha wadankaasi. cadaadiskan waxa uu ku soo aadayaa xilli wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay amaan u jeedisay madaxii hore sirdoonka boqortooyada Sacuudiga Said al-Jabri oo hardan siyaasadeed kula jira dhaxal sugaha wadankaasi Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman. Jabri ayaa Mohammed bin Salman ka dacwiyay maxkamad ku taala Mareykanka isagoo ku eedeeyay inuu qorsheynayay inuu shirqool ku dilo xilli uu ku sugnaa wadanka Canada. dacwadda sidoo kale waxaa ku jira caruur uu dhalay Said al-Jabri oo markaasi xarig lagu geystay wadanka Sacuudi. Said al-Jabri waxa uu ahaa saaxiib u dhow Mareykanka ee dhanka argagixisada la dirirka ayuu afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda u sheegay Middle East Eye. saraakiil badan oo dowladda Mareykanka hore u soo maray iyo kuwa hadda ka shaqeeyay ayaa yaqaana isla markaana xushmeeyay Said ayaa sidoo kale uu ku daray wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Mareykanka. arrimaha dibadda Mareykanka waxay dowladda Sacuudiga ka dalbatay inay cadeyso xariga caruurta Jabri waxayna ku boorisay in si degdeg ah loo sii daayo caruurtaas. waa hagaag waxaanu soo garnay qaybtii ugu dambeysay barnaamijka xubinta saadaasha hawada. haddaynu eegno xubinta saadaasha hawada magaalada Muqdisho qoraxda saaka waxay soo baxday 12:14 daqiiqo waxaa la filayaa inay dhacdo 12:13 daqiiqo. heerkulka magaalada Muqdisho waxa uu gaarayaa 26 digriid. magaalada Hargeysa qoraxda saaka waxay soo baxday 12:17 daqiiqo waxaa la filayaa inay dhacdo 12:11 daqiiqo hadduu beeraado. heerkulka magaalada Hargeysa waa 28 digriid. magaalada Kismaayo haddaynu eegnana qoraxda saaka waxay soo baxday 12:07 daqiiqo waxayna dhacaysaa 12:18 daqiiqo hadduu beeraado sida la filayo. heerkulka magaalada Kismaayo waxa uu gaarayaa markaasi 26 digriid. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii xogta wararka oo inoo soo jeedinaya anigoo Cabdinaasir Abshir Cali. intaynu ku kulmayna barnaamij mid kale mid ah waxaanu uga tegaynaa sidaas nabadgelyo.